waxaa la xaqiijiyay in uu ku dhacay 5 qof oo Soomaaliya cudurkan lagu magacaabo coronavirus. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome back to my YouTube channel again. فرحتي أنا مركز الدكتور مقدس سلوى صاحبي الميل بجوتان. سيدا التايتل كقارتان وحل حقيقي إنه كده عايش 5 qof oo Soomaaliya cudurkan lagu magacaabo coronavirus. waxaan arkay dad badan oo Soomaaliya oo dhahayo cudurkan waxa lagu talagalay gaalada qof muslim oo Ilaahay kuma ridaayo dhahayo ayaan arkay laakiin maanta waxa la xaqiijiyay in 5 qof oo Soomaaliya uu ku dhacay cudurkan coronavirus-ka. cudurkan ma ahan gaal bis in lagu talagalay qof walba oo bini'aadan ah oo ku dhacaya. shantan qof waxay ku kala nool yihiin Europe intaan hadda xogta ku hayo. wadanka koobaad ee la xaqiijiyay in Soomaalida ugu badan uu ku dhacay waa wadanka Talyaaniga wuxuuna ku dhacay ilaa iyo 3 qof. waxaan dhageysanayay maanta BBC-da muuqaal ay waraysi ka qaadeen dhakhtar jooga wadanka Talyaaniga kaas oo sheegay in uu hayo ama uu xaqiijiyay 3 kiis oo ah coronavirus oo laga helay dad Soomaaliyeed. sidoo kale wadanka Faransiiska waxa la sheegay gabar fasax ku aaday wadanka Talyaaniga kala soo laabatay in iyadana laga helay cudurka coronavirus-ka. sidoo kale wadankan aan ku noolahay ee Norway waxa jirtay gabar iyadana aaday wadanka Talyaaniga oo ka soo noqotay din laga helay cudurka coronavirus-ka waxayna degan tahay gabadhaas sida aan ka akhriyay Nursum gobol lagu magacaabo Rogaland saasa malayna inuu yahay ay degan tahay malayna ma ahan gobolkaas ay degan tahay. waxaana la sheegay iyadii macala familka in karantiin la geliyay ayaa la sheegay oo ku qornaaday Nursum. marka total dadka hadda la xaqiijiyay inuu ku dhacay cudurka coronavirus-ka ee Soomaalida ah waa tiro 5 qof way ka badan kartaa intaas way ka badan kartaa ilaa haddana waxa la xaqiijiyay in uu dhamaantood yihiin positive. sida la xaqiijiyay marka Soomaalida way dhiyelsadeen oo waxay aamineen fariintan oo qaldan oo ah in dadka madowga ah iyo dadka muslimka uusan ku dhicin cudurka coronavirus khaasatan dadka madowga ah oo maqaarkooda ama jirkooda uu leeyahay protect oo iska ilaalinayo ama uusan cudurkan coronavirus uusan ku dhicin. waxaasina waa been wax kama jiraan. cudurkan haddii uu Ilaahay kugu talagalay waa uu dhacayaa adigana waxa laga baahan yahay inaad tilaabadii aad iskaga ilaalin lahayd aad ku dadaashid ayaa loo baahan yahay. dhaqaatiirta talooyin ay bixiyeen taas oo ah banaanka marka uu bixiyay inaad gacmahaaga meertid inaad sankaaga iyo wajigaaga aan isku taaban gacmaha inaad dadka distance aad masaafo aad ka fogaatid oo aanad u dhawaanin si aysan ku soo gaarin neefta dadkaas ka soo baxayso. sidoo kale inaad iska ilaalisid meelaha uu ku sii faafayo cudurka coronavirus inaad aadid oo aad ku nagaatid meesha aad joogtid si uusan cudurkan saameyn kuugu yeelan. sidoo kale waxa la xaqiijiyay inuu cudurkan saameyn aad iyo aad weyn ku leeyahay dadka da'da ah kuwaas oo difaaca jirkoodu aad u liito iyo dadka xanuunka badan leh dad waxa jiro iska xanuulow qof waxa jiro iska xanuulow dadkaasna waxa la xaqiijiyay iyagana inuu cudurkan halis ku yahay. xaqiiqada kalena waxay tahay cudurkan waxa uu abaaraa sanbabada kaas oo qofka ka dhigayo inuu naafeeyo sanbabadiisa. haddii aad ahayd qof sigaar u badan oo balwadiisa sigaar tahay still nacab sigaarka waxa kuula talinayaa inaad iska joojiso sigaarka waayo sigaarka wuxuu waxyeeleeyaa sanbabadaada iyo dhaawaca haddii uu cudurkan kugu dhacana waxaad halis ugu jirtaa in aad naftaada ku waysid cudurkan. nafta waan ogahay waan wada ognahay in ay qadar leedahay ilaahayna uu qoray idaa jaa ajaluha la yastaqiruna saacatan wala yastaqdimuun inuu ilaahay quraankiisa ku yiri waynu ognahay. marka waa inaad adiga caafimaadkaaga ku dadaashid macnaheeda ma ahan inaad tiraadid ilaahay wuxuu ii qoray ayaa imaanayo anigana wixii idilaya ayaan sameynaya. saas awgeed waxaan kugula tali lahaa inaad iska joojisid balwadda sigaarka maadaama ay dhaawac u geysanayso sanbabadaada cudurkana uu yahay mid taarget gareeyo sanbabada ku dhaco. sidoo kale xaqiiqada kale oo la xaqiijiyay waxa ay tahay in qofka dhalinyarada ah uu cudurkan haddii uu ku dhaco badanaa uusan kasoo muuqanin. way jiraan dad difaaca jirkooda uu jilicsan yahay isla markiina qandhadii iyo waxyaabihii ay kasoo muuqanayaan cudurkan calaamadii lagu gadanayo oo ka imaanayo laakiin dadka dhalinyarada ah waxaa la sheegay 70% in 80% in marka ay qabaan ay yihiin dadka ugu badan ee faafin karo maadaama iyaga aan laga dareemaynin awoodda jirkooda ama awoodda difaaca jirkoodana uu weli adag yahay uusan ahayn sida dadka da'da ah. dadkaas marka way fududahay inay dad kala gaarsiiyaan iyagoon iyaga laga dareemaynin inay qabaan. tusaale ahaan anaaba qababa ilaahay ugu marido anaaba qababa marka wax calaamada oo muujinayo cudurkaasna igama muuqato dadkan aan salaamayo ila socdo caadiga ahna ma dareensano inaan qabo laakiin waan u gudbinayaa.
sababtoo ah aniga jirkayga awood wuxuu u leeyahay inuu iska celiyo yacni ama uu iska protect gareeyo laakiin waan qabaa waan faafi karaa laakiin dhibaato saasa aniga igu mahayo kaliya marka waxa iska ilaalisaa inaad booqatid meelaha ay ku badan yihiin dadkan qaba cudurka coronavirus khaasatan wadanka Chinaha sidoo kale wadanka Talyaaniga wadamo badan ayuu saaid ugu faafiyaa even wadanka aan joogay ee Norway uu ku faafiyaa maalintii aan muuqaalkii hore idin dhahay wuxuu soo gaaray magaalo ii dhow يعني waxa ka soo wareegtay maalmo yar 6 maalin oo malayn ka soo wareegtay sidaas ay tahay masa week sidaas ay tahayna hadda wuxuu marayaa markaas waxa maraynaa 2 kiis in Norway leeyahay yani oo cudurkan ah haddana wuxuu marayaa 180 kiis ayuu sii marayaa marka cudurkan waa saaid ah oo faafaya tuulada aan joogo waxa ku nool 4500 oo qof 4 kamid ayuu sii marayaa waliba mid aan isla shaqeyno oo shaqada isla joogno aabihiis ayuu ku dhacay aabihiis waa Talyaaniga oo soo laabtay isagana waa laga helay cudurka markii laga helay aabihiis xaafada lagu karantiilay wiilkii aabaha nasiib wanaag ismaysan arkin ama familkii aabaha ismaysan arkin waayo aabaha fasax ku maqnaa markuu soo laabtay waa la baaray waa la arkay isaga meel lagu karantiilay familkana meel ayaa la geeyay marka haddii aad aaminsaneeday in Soomaaliya tahay waa madowda kuma dhacayo maqarkaagu waa adag yahay haddaba kiisaska waa la xaqiijiyay inuu ku dhacay dad Soomaaliya marka adigana waxa laga rabaa inaad dhayirsan oo si serious u qaadatid laakiin aad ku dadaashid mar walba tilaabada lagula taliyo dadka inaad ku dadaashid marka Allah subhanahu wa ta'ala waxa inoo weydiinayaa inuu cudurkan dhamaanteen naga badbaadiyo ummadda muslimiinta aan dhamaantood Allah ka badbaadiyo insaankana Allah ka dulqaado waa imtixaan ilaah subhanahu wa ta'ala uu soo diray waana aayat min aayatillahi kamid ah yaani ilaah subhanahu wa ta'ala ayas ku saliday ummadan oo yaana wax ilaah subhanahu wa ta'ala xaqiisa ka yimid weeyaan ilaahay waxa weydiisanaynaa inuu naga badbaadiyo inta muslimiinta ah insaanka dhamaantood الله كباديو إذا كانوا حلا وما سنتين مقارنة دوشيسة فضلا هدير سنين عذر كان أوقاته سيدبح كانت تحديرة ضدك كله وما سنتين see you next مقابل